magaalo oo aanay boolisku si sax ah u maamulayn. Maanta waxaan joognaa Port-au-Prince, caasimadda Haiti, oo ah mid ka mid ah magaalooyinka ugu khatarsan adduunka. Aag furan oo u dhexeeya kooxo hubaysan, elites qarsoon iyo faragelin dibadda. Waxaa jira in ka badan 2 oo kooxo hubaysan oo ka howlgala caasimadda oo uu hoggaamiyo nin la yidhaahdo Barbeque oo caan ku ah inuu cadowgiisa toogto. Dhibaatadu waxay isku urursatay hal magac, taasoo la micno ah wada noolaansho. Maanta waxaan booqan doonaa xeryaha dadka ka cararay rabshadaha iyo xaafadaha la burburiyey. Iska caabinta ayaan la kulmi doonaa. Koox ayay samaysteen si ay u iska caabiyaan. Iska caabinta waa kuwaas. Kani waa iska caabinta. Muwaadiniin ayaa qaatay hub si ay u difaacaan bulshadooda. Waa inaan kor u qaadnaa difaaca. Ugu dambayntiina,